lacag jeebkaada ku jirto dowladdu uma socoto. qofka Soomaaliyeed biyaha cabayo iyo midka saxanka bariiska ama qaayada inta soo fadhiista ka cunaya iyo midka koobka kafeega cabaya waaye waxa lacagta laga qaado. digirta markii la joogo koonfur waxa ka tahay sida harako oo kale kor haddii maanta Muuse bixintu soo istaaga miidiyaha uu ka sheego qof walba iibsada harako inuu ka rabo lacag dulsaar ah sida loogu farcelin lahaa. I'm very happy to announce the European Union's 9 million euro disbursement to the government of Somalia. midowga Yurub waxa uu ku dhawaaqayaa inuu siinayo 9 milyan oo euro ah. dhiseenkan hadda idin muuqda waa dhiseenka waddo laami ah oo laga dhisi doono mid ka mid ah xaafadaha Hargeysa. waxaa lagu sheegay lacagta ku bixi doonta lacag gaaraysa 20 milyan oo dollar. waa la wajibaar lacagta hadda ay midowga Yurub ugu deeqeen Soomaaliya la kala tag orodse maaha. meeshan kale la eeg sawirkan hadda waxa ka muuqda jeenaha oo Soomaaliya ugu deeqaya kaba iyo darees xirtaan booliska Soomaaliya. midan waxa ka dhigan tahay jeenaha inuu leeyahay Soomaaliya xitaa ma awoodo inay u soo iibiyaan booliskooda kaba iyo darees ay xirtaan. urbagarbaad sartay wala la dhabay sifay waxaad cuntay heeryadaaga waxba ka dareeyeen reer wadani hadii ay qorigii iyo xabadii iyo burfulooyii u bedeleen heeso karbaasha ku karbaashayaan kooxo gaar ah isku hayaan siyaasadda Soomaaliland oo fiican yihiin. kulmiyada maxaa ku dhacay la hadda lagama hayo heeso jawaab ah mise shaxda safar. bismillah saaxiib marka hore soo dhaw marka ay tira muuqaalkan fogeyso meel fog gaaro ilaa hadda waxaan fahmi lahaa anigu heesaha tira balan karbaashka ah halka ka soo qofayaan xisbiga wadani waxa la arki jiray hees loo fakaro bil ama loo bilood laakiin hadda xisbiga wadani si maalinle wuxuu soo saarayaan heeso karbaash ah oo mid walba mid ka dambaysa ay ka miisaan culus tahay calaashaan ay ka xanuun badan tahay. waxaan moodaa heesahan tira badan leh inay bilow u tahay siyaasiyiinta Soomaaliland inay ka ilbaxayaan hadalka ay warbaahinta isku maray jirin hadda kadibna la arki doono siyaasi media intuu soo fariisto siyaasi kale u jawaabaya. sheekadu hadda kadibna noqon doonto hadalka la iska oran lahaa media ama TV-yada in la soo laxamaysto hees karbaasha laga dhigto. heesa hadda la soo qaaday midda ugu xanuunka badan dhageysigeeda markii la eego kulmiye iyo jamaahiirtiisa oo heesta ugu dambeysay ku looqeysay Ugbaad Aragsan. 7 sanadood hor joogtay wax qabad lagu soo hirtiyo hal erayo aad ku faanto markad heliyo yaabka umaga beenaada buurtay marbaad horar guud ka fuush iqaadi ka dhaxaystay maalmo liyoradu harbeelay hal doorkii ma dhageysan markuu dadku kugu hungoobay ayaad hay bagaar soo wacday urbagarbaad sartay wala la dhabay sifay waxaad cuntay heeryadaaga. waxa laga hayaa sayidkii maandhow ixsaan lagama tago eed hadaad falay heesihii hore lagu karbaashay kulmiye inkastoo ay ahaayeen heeso karbaasha laakiin ixsaan lagama tagin haba iska yaraada ixsaankaasi. heesta damasho ku looqayso Ugbaad Aragsan heestaasi waxa lagu tilmaami karaa atomic bomb. malaa waxaan siriba abwaanka sameeyay heestani si gaar ah isku maagayaan ama isku hayaan Muuse iyo kulmiye. waxaan arkay qaar badan kulmiye ayagoo leh fanaaniinta la socota xisbiga wadani waxay soo caayeen madaxda inkastoo laga fiican yahay in la caayo madaxda mucaaradka iyo maxaafadka laakiin siyaasadii Soomaaliland ayaa iska noqotaba inuu qof walba iska dhiiqaystaba. waxba ka dareeyeen reer wadani hadii ay qorigii iyo xabadii iyo burfulooyii u bedeleen heeso karbaasha ku karbaashayaan kooxo gaar ah isku hayaan siyaasadda Soomaaliland oo fiican yihiin. kulmiyada maxaa ku dhacay la hadda lagama hayo heeso jawaab ah mise shaxda safar. heesuhu waxay ka mid yihiin loolanka siyaasadda markasta ay soo dhawaato doorashada waxaa suuq fiican yeesha heesaha iyo dadka heesa. siyaasi kasta xitaa ha noqdo siyaasigaasi mid sheeqa oo siyaasadda ku soo biiray waa qasab inuu samaysto hees kala kacsan. sidoo kale media waxa ka socda dagaal telefoonka ah ama heeso kale ay isku karbaashayaan labada fanaan Ilkac Qays iyo Sharma Boy. labada raabar dagaalkooda fanka maalmihii ugu dambeeyay wuxuu gaaray halkii ugu sareysay. waxaan loo kala saftay laba group taageersan Ilkac iyo group taageersan Sharma Boy. wiilka cawsha oo jiabsamay asana wareec lafti galbad kuumada wareec baarqabka doobiya la garanidaan naneseeda aan ku baray bal ku qoro buuga. marka isku eegto ereyada hadda u isticmaalayaan fanaaniinta heesahooda iyo ereyada ay u isticmaalaan fanaaniinta Hargeysa heesahooda فرق وين أيها ودحية مدة صنع كتنا يساكل دوناشا ودحية فنك سوماليان iyo fanka Soomaalida kale. ma arkaysid lamana arkay taariikhda inta la hayo fanaan reer Hargeysa ah oo ku heysay qabiil sida hadda Ilkac oo kale. midaas waxay ka mid tahay waxyaabaha qiimaha u yeelay fanka Hargeysa. hadda labadan fanaan waxay isugu faanayaan iyadoo la joogo 24 qabiil. anaa kala dheeraysan maya anaa kala dheeraysan
ilkaasi iyo sharmaba dagaalkooda hadda wuxuu la xiriiraa dagaalka waayahanba ka dhex taagnaa majaarteen ay ogaadeen kaasoona markii hore kasoo bilaabmay kursiga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. baaqayaa qof kasta oo ka soo jeeda beesha ogaadeen inuu muddo 3 maalmood gudahooda kaga baxo dhammaan deegaanada majaarteen ku degaan. waxaan rabaa inaan baaq u diro beesha majaarteen waxbaa la qarqarinaya daayto magaca la qarqarinaya anagu dadka aan sayno waa dadka anaga qadiyadana haynayo ee wax loo dhimayo marka waxaa doonayaa dad dhan oo waxaan arkay maamulo xukumo oo meesha ka soo jeedo oo dhahaya oroma waxyeelay ma anaga dad baa waxyeelay marka waxaa ii sheegayaa beesha majaarteen in badan meeshaan ogaadeen baa ka taliyo ogaadeen baana loogu yimaadaa kabaandadan isliil ugu joogo oo sharciyada ama guryaha dhaadheer lagu dhiso tubakaayada iyo waxba la sheegay in misisir xabad lagu ridaa tubakaayadaha jijibiya wallahi dabaqaya u eersan doona markaana Muqdisho Soomaaliya inay tahay dal fashilmay waxaad ku ogaanaysaa koox walba xilka Soomaaliya qabata albaab kasto caalamka xilli taagan yihiin dawarsi iyo waxnasiya midaan ilaahana ka weyn ma jirto hadda kooxdan xasan 4 sano hadda ay joogan xilka ma jiro qof sheegi kara hal mashruuc ay fulin xitaa noqdo mashruucaasi mid ka yimid wadamadan isku sheegan ay yihiin deeq bixiyaal ilaahay baa deeqda baxshay maalin kasta waxaad maqlaysaa lacago malaayiin dollar ah ayaa lagu deeqay Soomaaliya lacagtaasna cidna isma weydiiso halka ay ku baxdo lacagtaasna ma soo dhaafto kooxda markaasi ee talada ka haysa Soomaaliya. I'm very happy to announce the European Union's 9 million euro disbursement to the government of Somalia. midowga Yurub waxa uu ku dhawaaqayaa inuu siinayo 9 milyan oo euro ah oo loogu taageerayo miisaaniyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya. haddii baa rabtay in qof wax weydiisato waxa la weydiistaa wax weyn oo ku dhigma hadda kooxdan hadda hoggaanku iyo Xasan Sheekh waxa lagu misaali karaa ayaa meesha ku degaan waxba kaga ma tagaan wax yar baa noqotee lacag jeebkaad ku jirto dawladdu uma socoto qofka Soomaaliyeed biyaha cabayo iyo midka saxanka bariiska ama qaadida soo fadhiista ka cunaya iyo midka koobka kafeega cabaya waaye waxa lacagta laga qaado adeegi inaad adeega noqoto adiga oo fududeeyo noqoto waaye waxa diidantaa lacag jeebkaad ku jirto dawladdu uma socoto wiishka midka qaadayo iyo xamaaliga alaabta qaadayo dekada jooga iyo baabuurka soo qaadayo odaga Xasan Sheekh waa halaag waa manax wax ka baxsanaya habeeraate ma jirto kuwa dhintay xitaa qabrigooda lacag ayuu ka qaatay kii xamaaliga lacag ayuu ka rabaa xitaa dad cunayso haf digara ah oo aad wax kala haysan lacag dulsaar ayuu ka rabaa ninka noocaas ay qaar kamid ah Soomaaliland waxay lahaayeen wuxuu noo difaacayaa badeena warafii shambir waraska ma hayaan iyo san lafahaaga ku iibsan digirta markii la joogo koonfur waxa ka tahay sida harako kale koor hadii maanta Muuse bixintu soo istaaga miidiyaha uu ka sheego qof walba iibsada harako inuu ka rabo lacag dulsaar ah sida loogu farcelin lahaa dib aan ugu laabto lacagta 9 milyan ah midowga Yurub ugu deeqay Soomaaliya 9 milyan waa lacag laakiin markii la eego lacagta sifaay ku timid iyo halka ka imaanayso waa cad quureed waana bahdilaad waxaana ku tusinaysaa Soomaaliya iyo kooxaha isku bedelaba dawarsigu inay u tahay xirfad ay ku baahi baxaan dhiseenkan hadii ay muuqdo waa dhiseenka wada laami ah oo laga dhisi doono mid kamid ah xaafadaha Hargeysa waxa lagu sheegay lacagta ku bixi doonta lacag gaaraysa 20 milyan oo dollar waa la wajibaar lacagta hadda ay midowga Yurub ugu deeqeen Soomaaliya la kala tag orodse maaha meeshan kale la eeg sawirkan hadda waxa ka muuqda jeenaha Soomaaliya ugu deeqaya kaba iyo darees xirtaan booliska Soomaaliya midan waxa ka dhigantaa jeenaha inuu leeyahay Soomaaliya xitaa ma awoodo inay u soo iibiyaan booliskooda kaba iyo darees ay xirtaan